ومالين جمعة انت ان فردنو المحاضرة دغيسانينو سليغا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هالمامن سليغا النبي ودنو oo inta yar saacadaha dhiman aan ka faa'iideysano fadiilada inaan helno insha Allah ta'ala barnaamijka weyno socon doona sheekhan waa raali gelinaynaa Dr. Xasan waxaan ka qaadanay waqtigiisii 11 daqiiqo marka waa raali gelinaynaa sheekhana soo dhawow موضوع محاضرة الشيخ ينوغلي دونه وحويه إلها قفك شيطانك وكسو قاله ميلاها شيطانك قفك وكسو قلي كره وهي موضوع محاضرة الشيخ ينوغلي دونه لقيسي وعن أنكو دفايدي سنو سودو شيخنا جزاك الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد موضوع سيدة الشيخ عبد الرحمن الشيخين تانا قذقلين laba baraarujin oo kooban baan sheegaya insha Allah ta'ala mid waxay tahay anigu waxaan kamid ahay ragga ahlul xadiidka ee cilmul xadiidka bartay culimada xadiidkuna qaacida ay leeyihiin oo waxay yiraahdaan haddii cilmi la sheegayo waa in loo fadhiistaa imaam Maalik cadar buu isku soo shubi jiray waana u soo labisan jiray markuu cilmiga u fadhiisanayo ولا تحدث قائما أو مضجع أو في الطريق أو على حال شنيع بينهدي أدو تاغن علم لما شيغو لكن عصرنا هذا كينا يا إن دتك وحلا قارسيو يا علميا العصبة كينا مركا تي أهل الحديث كينا قصة عن ما يتي كلام قصة عنيا إن سرتشوب علم لما شيغو براروشين طلبات waxaa jooga culimadaydii baa jooga rag iga da'waaweyn iga khibrad badan oo iga mudan oo hortooda aanay ahayn laga hor hadlo laakiin culimada xadiisku waxay yidhaahdaan iyadoo cid kaa mudan ay joogto wax waad sheegi kartaa waman yuxadith wahunaaka awla falaysa kurhan aw khilaafa alawla هذا هو الأرجح والصواب عهد النبي حدث الصحاب وفي الصحاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع والله يسكوا فقصين يدو الشيخ أبو تشوغو عد كاموداني أي تشوغتو حق هداد شيء يسوينات شيكتو ومثلا يسكوا فقصين أي نبي تشوغ عليه الصلاة والسلام أيا أبي بكر يا صحابة وحشيقين وحانتا كقبحيا waqtigoo iska ciriiriya awgeed xagga dambana inaan ilaa waan ka baqayaa waa galab jimce jamacu waa badan yahay saacadihii ugu dambeeyay jimcaha ducada la ajiibayay weeye duruufo badan iyo dana badan iyo xanuuno badan baa laga cabanayaa waxaan ilaahay uga baryayaa qof kastoo dhibban ilaahay dhibka inuu si degdega uga qaado qof kastoo buka ilaahay caafimaad degdega u siiyo qof kasta muraadkiisu aan macsiyo lahayn alla subxaanahu wa tacaala uu siiyo alla subxaanahu wa tacaala tacabka iyo waqtiga iyo dadaalka aynu soo bixinay hadday culimada tahay iyo hadday tahay bulsho weyntaba in alla subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka dhammaanteen inoo geliyo waxaan si gaara ugu ducaynaynaa mu'asasadii waxa weeye sababta u ahayd kulanka inta leeg inuu qabsoomo culimada inta leegna la isu keeno مؤسسة أنصار السنة يغنى السيجار أن يقدوا عينينا لذلك أي سميين إن الله سبحانه وتعالى كقدومه والله سبحانه وتعالى كأقبله لقبل أبوه وذيقوده شيخ عبد الرزاق وحوي علمدي لسعتي أخيارتي يدلي يردي لشقينيسي ينتي هل كان كرعدي هل كان كلا شقينيسي دمانتود وحنا الله سبحانه وتعالى وقبرينا إن أجركودا أنو كضيعنا أولا بالله
camalladan iyo camalla ka sii qiimo badanna alle subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo ujeeddadii ay ka lahaayeenna inuu u xaqiijiyo ayaan alle subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa aaminta maxaa ugala bakiisheen si fiican oo nool aamin u dhaha aamiin 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 mawduucaygu sida la sheegay waa xoogaa 50 daqiiqo ama 40 daqiiqo baynu nin shaytaan la yidhaahdo la noolaanaynaa ashaytaan iyo halka uu inaga soo galo iyo xaqiiqadiisa baan doonayaa insha allahu tacaala daqiiqadaha aan haysto inaan ku soo koobo mawduucana 3 qaybood baan u qaybinayaa mid waxay tahay xaqiiqada shaytaanka iyo tilmaamihiisa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay inooga sheegeen inaan wax isaga tilmaano qodobka labaad meelaha uu dadka ka soo galo iyo qaababka uu adeegsado markuu dadka luminayo iyadana insha allahu tacaala wakhtiga in badan oo ka mida ayaynu ku qaadan doonaa sida ciwaanku ku baxay qodobka saddexaadna dawada oo aynu soo koobayno ayaan insha allahu tacaala kusoo gabagabaynaya shaytaan haddaynu qeexno kelmadda asalkeedu waxay ka soo jeedaa fogaansho shatana waa albucd bacuda waa fogaaday weeye marka shaytaanku waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaaday waxaana looga jeedaa macnaha guud ee shaytaan loo yaqaano sharciga waa kullu mutamaridin caasin lilaahi caza wajal waa mid kastoo madax adag oo alle subxaanahu wa tacaala caasiyey oo waxa weeye mufsida dadka fasahaadinaya ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo mid kastoo madax adag oo ilaahay caasiyey ka gaaloobay mufsida oo wax fasahaadinaya ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo waa shaytaanka macnihiisa guud weeye shaytaanka macno gaaruu leeyahay وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن آيات بدن با قرآن كان لغو شاقي إنسيغا لفتيسو إنو ليهي الشياطين أوليهي كينو ما انت كاهد لينا أينو حوق سارينا وكقرصون وشيطان كحقيقي وشيطان كجنك كسو تشيدا إبليس كسو تشيدا شيطان كاسينو إن شاء الله تعالى كاهد لينا shaytaanka haddii aynu qeexno waa makhluuqaadka alle subxaanahu wa tacaala ka mida alle subxaanahu wa tacaala uu ka abuuray naar oo alle subxaanahu wa tacaala ka abuuray awood u leh inuu qaabab kala duwan isu soo bandhigo ama dad ha isu ekaysiiyo ama xayawaanaad ha isu ekaysiiyo ilaahay uu awood u siiyey inuu qaabab kala duwan uu isku muujiyo wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku tabiiceeyey cala alwaswasati waalighwaa inuu wax lumiyo inuu wax waswaasiyo inuu wax baadiyeeyo ayuu alle subxaanahu wa tacaala ku tabiiceeyey xumaanta inuu ka shaqeeyo isagoo cagsi ku ah malaa'igta cagsi ku ah oo iyagu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u abuuray inay alle subxaanahu wa tacaala caabudaan yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هريا هبين يقول عباده تاغين مركين الشيطان كهر لينه عادة وحلو استعمالا كلمة الشيطان وحكستون لفوقيني وحلو رنا يقف سوى الشيطان يعني واقف لك قوستيوي لكن واحد شرا ومن باب الفائدة إنه شيئين علماء المحدثين تمركي كهر ليان ألفاظ ذاتك اللغو أمانه ama lagu ceebeeyo waxay yidhaahdaan culimmada qaar ay isticmaalaan shaytaan waxay u isticmaalaan ammaan bay u isticmaalaan rag culimo ah oo waaweyn baad kutubuljarxi watacdiil ka soo helaysaa iyadoo la leeyahay hebel waa shaytaan ma aha nin fallaagoobay oo xadka ka baxay ma aha laakiin macno kale wanaagsan bay uga jeedaan shiikhii la odhanayay sufyaan athawri kuufa ayuu u dhashay wuxuu soo booqday magaalada basre la yidhaahdo
wuxuu waxaan doonayaa in xadiidka ila muraajaceeya boqolaal kun oo xadiid baa laga yaabaa iyagoo aan diyaarin maca sanadkiisa xadaanaa fulaan qaala xadaanaa fulaan inay waxa weeye dusha ka sii daayaan sufyaan athawri culimmadii waaweynaa buu ahaa waxaa loo keenay yaxya bnu saciid alqaطaan alaxwal albasri meeshuu yimina basre yahay waa nin dhalinyaro ah ayuu ahaa markaa isagii baa loo keeno waxaa la yidhi shiikhan kaale axaadiista la muraajacee sufyaan kama filanayn wiilkan yari inuu u babac dhigayo kama filanayn axaadiistii baa la isdhaafsaday markii xoogaa la waday baa shiikhu naftiisiiba u yaaba dabeedna shiikhii wuxuu ku yidhi maa ataytumuunii biinsaan inamaa ji'tumuunii bishayطaan buu yidhi bini aadan imaydaan keenin ee shayطaan baad ii keenteen yacni ninaan caadi ahayn oo aad u xifdi badan ayaad waxa weeye ii keenteen ilaahay baynu uga mahad celinaynaa shiikha ilaahay soo furdaamiyey jazaaka allahu khayra shayطaan waxaa loo isticmaalaa saa aynu sheegno xilliyada qaar wixii caadiga ka baxsan xadka ka baxsan laakiin wanaagsan culimmada qaar waa u isticmaalaan tilmaamaha shayطaanku leeyahay intaynaan u gelin kelmadda shayطaan ama ashayaaiin ilaahay kitaabkiisa qur'aanka wuxuu ku sheegay 88 jeer baa kelmadda shayطaan iyo jamaceeda shayaaiin ilaahay uu qur'aanka ku sheegay 11 jeerna waxaa la sheegay ibliis oo magaciisa lagu sheegay waxay isku noqonayaan 99 jeer baa shayطaan iyo ibliis ilaahay kitaabkiisa ku isticmaalay intaasoo dhanna waxaa lagaga hadlayay khatarihiisa iyo wuxuu dadka u maleegayo iyo inuu cadow u yahay nafta oo iyada lafteeda lagu tilmaamay inay tahay ammaaratun bisuu ilaahay meelo kooban buu ku sheegay waxaa aad looga hadlay shayطaanka aad looga hadlay ujeeddaduna waxay tahay nafta xumaatay lafteeda shayطaan baa xumeeyey oo waswaasiyo lumiyey sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam haddaynu eegno shayطaanka 377 xadiis baa shayطaanka lagu sheegay 377 xadiis ayaa nebigu kaga warbixiyey shayطaanka iyo tilmaamihiisa iyo dhagartiisa 200 wax ka badan oo 261 xadiis waa axaadiis saxiix oo nabiga ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam 161na nabiga laga wariyey calayhi الsalaatu wasalaam laakiin kama sugnaa waad qiyaasaysaa 99 aayadood iyo 261 xadiis oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay shayطaanka kaga warbixinayaan maxay ka sheegeen tilmaamihiisa waxaa laga sheegay annahu yatashakal inuu isqaabeeyo oo uu iska dhigo bini aadan xilliyada qaar uu xayawaan iska dhigo axaadiista waxaa ku timi isagoo caanaqub iska dhigay isagoo mascagale iska dhigay isagoo qof bini aadana iska dhigay waxa weeye intaba waa lagu hayaa waa wax ilaahay uu siiyey inuu isbadbedelo tilmaamihiisa waxaa ka mid a yaraanaa walaa naraah uu ina arkayaa laakiin inagu arki mayno haddii uu xaaladiisii shayطaannimo jinnimo ilaahay uu ku abuuray hadduu ku sugan yahay laakiin qaabkiisa hadduu bedelo waa suuragal in la arko waana la arkay tilmaamihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay cadow insaanka inuu u yahay 12 aayadood ayuu ilaahay ku caddeeyey cadaawaddiisa ina الshayطaana kana lilinsaani caduwa mubiina inahu caduw mudil mubiin ina الshayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa waa 12 aayadood oo allah rab اlcaalamiin oo cidi aanay ka xogogaalsanayn cidi ka run badnayn uu leeyahay shayطaanku cadow buu idin yahay tilmaamihiisa waxaa ka mid ah alxiqd wاlxasad inuu yahay qof cuqdadaysan xaasidnimo ka buuxdo ibni aadamka iyo karaamada la karaameeye ka dhimanaya
taana waxaa kugu daliila sujuudi nabiyullaahi aadam la yidhi u sujuud waxaa ku kalifay inuu diida xaasidnimo yahay tilmaamihiisa waxaa ka mida inuu yahay rajiim mid alle subxaanahu watacaala naxariistiisa uu ka dheereeyey oo aayado badan lagu tilmaamay tilmaamihiisa waxaa ka mida lacanahu allah inuu yahay malcuun alle subxaanahu watacaala naxariistiisa uu ka fogeeyey waxaa lagu tilmaamay inuu yahay maarid mid madax adag wa xifdan min kulli shayطaanin maarid oo aayado badan lagu sheegay waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid muwaswisa oo dadka waswaasiya oo welibana ku soo noqnoqonaya min shari اlwaswaasi اlkhannaas waxaa lagu yaqaanaa shayطaanka been iyo fulaynimo sida aayaadku tilmaamayaan wamaa yaciduhum الshayطaanu ila guruura falama taraa'at اlfi'ataan nakasa calى caqibayhi waqaala inii bariiء minkum oo iyaduna tilmaamaysa fulaynimadiisa markuu malaa'igta arkay inii araa maa laa tarown inii akhaafu اllaha wallahu shadiid اlciqaab shayطaanka tilmaamihiisa waxaa ka mid ah takabur inuu isweynaysiiyo oo ka mida asbaabihii keentay inaanu u sujuudin nabiyullaahi aadam usjuduu liaadam fasajaduu ila ibliis abaa wastakbara wakana min alkaafiriin wuxuu ku sifaysan yahay isla weyni iyo inuu naftiisa la cajabay oo uu ku dagtoomay waxaa ka mida shayطaanka tilmaamihiisa inuu yahay daciif mid taag daran xeeladihiisa iyo tabihiisu ay daciif yihiin faqaatiluu أwliyaaءa الshayطaan ina kayda الshayطaani kana daciifa shayطaanka dhagartiisu waa daciif waa mid tabar daran weeye laakiin waa ciddii u babaadhigta shayطaanka tilmaamihiisa waxaa ka mida inuu qaab xun yahay inuu alle subxaanahu watacaala foolxumo uu waxa weeye ka abuuray wuxuu alle subxaanahu watacaala tilmaamay markii jahannamo laga hadlayay طalcuha kaأnahu ru'uusu الshayaaطiin waxaad moodaa madaxyo shayطaan oo kale inay yihiin wuxuu leeyahay ibnu kaiir raximah اllahu tacaala waxay dadku isla caadaysteen oo nafahooda ku sugnaaday oo dadku ay isla yaqaanaan shayطaanku inuu foolxun yahay sidaasaa loogu shabahay xadiidkii bukhaariga ku yimi markii nabiga la sixra calayhi الsalaaةu wasalaam ee loo sheegay sixirka ceelkii loogu aasay wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam geedtimireedkeeda kaأna ru'uusa nakhliha ru'uusu الshayaaطiin buu uhi nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa halkaa laga qaadanayaa shayطaanku inuu foolxun yahay googal haddaad ku dhufato shayطaan qaybta suuradahana aad tagto sawiro badan oo shayطaanku leeyahay oo la matelay baa kuu soo baxaya oo waxa weeye aada looga argagaxayo shayطaankii maaho qaabkiisa laguma arag laakiin wixii maskaxdeenna ku jiray baa la matelaya foolxumo halkii ugu dambaysay baa lagu matelaya tilmaamaha shayطaanku waa badan yihiin waxaa aan ku soo gebagabaynayaa nabigu inuu ku sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam shayطaanku inuu geesa leeyahay geesahaasi ma kuwii xoolahoo kale xaqiiqigahaaba mise waxaa looga jeedaa madaxa labadiisa dhinac labada macnoba culimmadu waa isku hayaan daahirkuna waxa uu yahay geese xaqiiqiya inay yihiin walow masaladu ay khilaafi tahay ibnu xajarna wuxuu xoojinayaa in looga jeedo awooddiisa iyo khalabadiisa iyo xooggiisa in geeska laga wado waayo xayawaanka geeska leh waa ka awood badan yahay taseeyada ah ee aan geeska lahayn shayطaanka tilmaamihiisa waxaa ka mida inuu qoslo waxaa ka mida inuu ooyo markaynu hamaansanno waa inugu qoslaa haddaynaan afka gacanta saarin muxuu inoogu qoslayaa wuxuu inoogu qoslayaa alle subxaanahu watacaala qaab wanaagsan buu inoo abuuray qofku markuu hamaansado waa qaab darnaanaya shayطaankuna qaab darnaantiisaasuu ku qoslayaa wuxuu kaloo ku qoslayaa qofku markuu hamaansado ee afka gacanta aanu saarin in sunnadii nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam la baalmaray taana waa ku qoslayaa wuxuu kaloo ku qoslayaa shayطaanku oo waxyaabaha keenaya qosolka ka mida sida la sheegay shayطaanku waxyaabo badan baa keena inuu waxa weeye ku qoslo oo ay ka mid tahay
qofku markuu hamaansado inuu caajisaysan yahay uu qaadiraysan yahay hurdo uu ka soo kacay ama uu dharagsan yahay waxyaabahaasoo dhan ayaa keenaysa oo xaalad dacfi ama taagdarni ama nuqsaan ayuu ku tusayaa shaydaanku sababtaasuu ugu qoslayaa waxaa laynoo sheegay inuu ooyo oo ibnu aadamku markuu sujuudo shaydaanku waa ka fogaadaa isagoo ooyaya oo odhanaya waxaa lay faray inaan sujuudo waan diiday naar baan mutaystay ibnu aadam baa la faray inuu sujuudo waa sujuuday jannuu mutaystay dabeedna wuxuu fogaanayaa isagoo ooyaya sida axaadiistu inoo sheegaysa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaan uga gudbayaa tilmaamihiisa qaababka dadka uu lumiyo aad u badan waxaa ka mid a qaababka inuu wax waswaasiyo oo ah camalada ugu badan ee uu sameeyo wuxuu waswaasiye aabbaheen aadam calayhi salaam fawaswasa ilayhi الshayطaan qaala ya aadamu hal adulluka calى shajarati اlkhuld wamulkin laa yabla wuxuu waswaasiyey nebi aadan calayhi salaam oo geedkii loo diiday buu u macaaneeyey oo u qurxiyey oo uu yidhi makuu tusaa boqortooyo waaraysa oo aan weligeedba dhammaanayn waswaaskaa uu samaynayo wuxuu qurxinayaa wixii xumaa buu dadka u qurxinaya alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay min shari اlwaswaasi اlkhannaas mid dadka waswaasinaya haddii alle subxaanahu wa tacaala xuskiisa ay ka mooganaadaan alkhannaas oo waxa weeye soo noqnoqonaya oo ilaahay haddii la xuso waa tegaya marka xuskiisa laga tago ama la ilaawana waa soo laabanaya waxaa cajiiba labadaas suuradood ee isku xiga suuratu اlfalaq iyo suuratu اnnaas suuratu اlfalaq allaha la magan gelayo tilmaam baa loo sheegay keliya waxa laga magan gelayana afar baa laga dhigay qul acuudu birabbi اlfalaq inta ka dambaysa waa wixii laga magan gelayay ilaahay mar keliyaa la sheegay afar shay oo laga magan gelayana waa la raaciyey afartaasiba waxa weeye waa makhluuqaadka weeye bini aadamkay ku saabsan yihiin walow ta ugu horaysa ay caam tahay min shari ma khalaq suuratu nnaasna alle subxaanahu wa tacaala 3 jeer baa la sheegay waxa laga magan gelayana mid keliya laga dhigayo waa la adkeeyey qul acuudu birabbi اnnaas maliki اnnaas ilaahi اnnaas waxaa loo soo celceliyey min shari اlwaswaasi اlkhannaas ka wax waswaasiye ee soo laablaabta ayaan ilaahayow kaa magan gelaynaa waxaa saa loogu soo celceliyey oo sidaa loogu adkeeyey shaydaanku khatarta uu leeyahay baa lagu tilmaamaya waxaa macnaha la mida markii laga hadlayey insaanka iyo shaydaanka laga hadlayey idfac bilatii hiya axsanu sayi'a naxnu aclamu bima yasifuun waqul rabbi acuudu bika min hamazaati الshayaaطiin khud اlcafw waamur biاlcurf waacrid can اljaahiliin waima yanzaganaka min الshayطaani nazgun faاstacid biاllah idfac bilatii hiya axsan faإida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaأnnahu waliy xamiim waxaa la sheegay waima yanzaganaka min الshayطaani nazgun faاstacid biاllah oo lagu tilmaamayo labada ku dhibaya waa insiga iyo jinniga sida loola macaamilayo insiga waxaa la tilmaamay inaan laga quusanayn xumaanta uu kugu samaynayo wanaag in loogu bedelayo waxaa suuraa inuu isbedelo oo uu hagaago laakiin 3 aayadoodba shaydaanka waxaa lagu sheegay markii lasoo hadal qaaday faاstacid biاllaah ilaahay in laga magan galo isagu dawo ma leh ibnu kaiir raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahy cadaawadiisaa caddaatay wuxuu doonayaa bini aadamka inuu halaago rajo lagama qabo uu inoogu noxo ama uu inoogu tudho sidaa awgeed waxaa u taalloo keliya ilaahay in laga magan galo faاstacid biاllaah ayaa waxa weeye lagu celceliyey waswaaska shayطaanku ina waswaasinayaa ilaahay caqli buu siiyey garaad buu siiyey
fariidnimo xumaanta uu adeegsanayaa la siiyey qof walba xeelad iyo tab buu ku dayayaa dadka wuxuu u maraa 7 salaam buu u maraa qofka wuxuu kaga bilaabayaa markuu waswaasinayo inuu gaalnimada ku eego nifaaqa uu ku eego cibaadada alle subxaanahu wa tacaala cid kale inuu la wadaajiyo taasuu qofka ku waswaasinaya u qurxinaya kamathali shaytaani id qaala lilinsaani kfur gaalnimuu kaa dalbanaya gaalnimadaasi hadday socon weydo wuxuu uga gudbayaa martabada labaad wuxuu kula aadayaa xagga bidcada waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu aanay jidayn ayuu kuu qurxinaya wuxuu kaaga dhigayaa diin iyo cibaado cibaadaduna ama bidcadan u jeedaa bidcadana shaytaanku waa ka jecel yahay macaasida iyo dunuubta haba weynaato waayo bidcada sida badan lagama toobad keeno siduu uga toobad keenayaa qofku wuxuu isu haystaa inuu wanaag iyo cibaado ku sugan yahay buu isu haystaa wuxuu ku dayayaa bidco hadday socon weydo wuxuu uga gudbayaa dunuubta waaweyn oo qofku markuu ku dhaco ama uu jaanis ka helo iimaankiisa laga siibayo oo uu daciifayo ay fududaanayso inuu waxyaabo badanoo dambe u geliyo taasi hadday u socon weydo dunuubta sakaa'irta ah ayuu waxa weeye gelinayaa oo dadku ay fududaystaan ayuu qofka gelinayaa haddii dunuubtii yaryareed qofku iska ilaaliyo wuxuu ku dadaalayaa mubaaxaadka inuu ku mashquuliyo waxyaabo loo baneeyey oo waqti lumisa madadaalo ah ayuu qofku ku mashquulayaa oo uu kaga mashquulayaa cibaadooyinkii iyo daacooyinkii taa haddii qofku uu ka dadaalo oo uu arko qofkii shaydaanku uu arko qofku inuu u socdo xaggii wanaagsanayd wuxuu u bayrayaa inuu wanaaggii uu samaynayey ee uu doonayay wanaag ka hooseeya inuu ku mashquuliyo alishtigaalu bilmafduuli can ilfaadil qofkii wuxuu doonayaa salaatuleyl inuu tukado wuxuu doonayaa habeenka aakhirkiisa dambe inuu tukado oo fadli badan wuxuu jeclaysiinayaa awalka inuu ka tukado camaladii wan wanaagsanaa ka ugu liituu ku mashquulinaya waa xaasid wuxuu ka mashquulinaya camalkii qiimaha badnaa hadda golahan aynu fadhino dad badan markii la iclaamiyey waxay yidhaahdeen lifekaanu ka daawanaynaa anagoo gurigeyga ku qaxweynayna dad badan baa lifeka hargeysa inala joogo lifeka ka daawanaya dadkaas iyo dadka yimi ee soo dhididay ee jamaca ka soo qayb galay ee muuqaalkoodu khayrka badan uu arkayo waxa weeye shaydaanku wuxuu isticmaalay xeeladan buu isticmaalay tanaa uga ajar badnayd uga tacab badnayd waxyaabo badan oo khayra oo aan wacdiga la maqlayo keliya ahayn indhihiisa uu ku arkayo ummaddaa wada heelan ee khayrka u heelan iyo meeshaa quruxdeeda ayaa waxa weeye qofka seegaysa haddaad tiraahdo shaashaduu ka daawanayaa intaa lafteedana xajkaba dee shaashadaynu ka daawanaa mana xajino kacbadaba iyadoo la jibaysan yahay baynu daawanaa soomaa dee mana joogno wax badan baa inagaga maqan waxaan uga gudbayaa qodobka 6 ama 7 ee ugu dambeeya intaaba haddaad ka soo gudubto wuxuu kugu sallidayaa maangaabka ayuu kugu sallidayaa qofkii intaaba ka soo gudbaya wanaagsanaa mar la yidhaahdo waa argagaxiye mar la yidhaahdo waa wahaabi mar la yidhaahdo waa danayste mar la yidhaahdo waxbuu qarsanaya iyo waxyaabo la mida ayaa lagugu sallidayaa dad badan baa lagugu soo kicinayaa baraha bulshada wax badan lagu dhigayaa dabeedna waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo war xaaladdu sidan ku sii socon maysa magaaladiina waa mari kari waaye aan iskaga dhex baxo saaxaddan aan iskaga dhex baxo waa xeeladihiisay ka mid tahay waxaa ka mid ah xeeladihiisa atazyiin inuu wax qurxiyo macaasidii inuu kuu macaaneeyo waxaan ku jirin inuu kaa tuso ayaa ka mida tabaha uu isticmaalayo waxay culimmadu sheegeen markay mawduucan ka hadlayaan nin abwaana oo aad u aftahana oo laakiin ciyaalo suuqa oo fogaaday ilaahay ka fogaaday
magaciisa waa sheegay laakiin halkan ku sheegi mayno ayaa wuxuu gabaygii u isticmaalay dumarka inuu ku xodxoto gabadh kastoo uu ka helo wuxuu yidhaahdaa naftaada isii ama waan kuu gabiyayaa gabay odayguna kugu furo ama aan lagugu guursan noloshana aad kaga dhacdo oo waxa weeye lagu safro oo lagu madadaasho ayaan kuu gabiyayaa gabayguna saamayn weyn buu lahaa wuxuuna waa caaro waa gabadh dabadeedna qaar badan baa u daciifa oo is yidhaahda ninka baladiisa iyo sharkiisa isdhaafiya gabadh buu ku soo hagaagay maalintii dambe gabadhii buu ku yidhi waxa weeye haddaadan naftaada isii waan kuu gabiyayaa aad bay uga walwashay gabadh macquula bay ahayd caqli badan xal bay weyda gabayna ma doonayso nafteeda inay siisana dooni mayso waxa weeye waxay fakartaba ina kaydahunna cadiim dhagartoodu waa weyn tahay waxa ay tidhi waa yahay guriga noocaasa xilliga noocaasa waa xilli habeena saacadda noocaasaad iigu imanaysaa gabadh xishood badan baanahay waxaana naftaydu aqbali mayso kelmad kuu jiibin maayo ilana hadli maysid faynuuskana waan daminayaa faynuuskana igu shidi maysid waxaaga markaad dhammaysato albaabka ka bood dibna inaan isu arkin anigu wuxuu yidhi hawshaasun baan u socdaa diyaar baan u ah islaantiisii bay u tagtay waxay ku tidhi odaygaagii baan isaga taaglahay caawana waa la ballamay waxaan doonayaa booska inaad ii buuxiso waayahay bay tidhi islaantii baa qolkii madoobaad u gashay waa xaaskiisii qolkii madoobaabay u gashay ila ballan baa lala galayo isagoo ordayuu soo galay hore hawshii ka bilaabay markuu si dhammaystay is yidhi bax ayay tihi waaryaah miyaadan i garanay intuu naxay buu yidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay oosho waxaad ku macaanayd xaaraantaad ku macaanayd xalaashana waad ku qadhaadhayd buu waa isla islaantiisu iyo habeen hore isugu dambaysay laakiin maanta markay dhuumaalaysi noqotay niyadda uu geliyey inay cid kale tahay ayaa isla meeshiiba waxay la noqotay meel kale la noqotay waxaa halkan laga qaatay shaydaanku waxaan macaanayn ama wax aan sida la filaya ahayn inuu wax kale shaydaanku uga dhigayo qofka uga dhigayo waxaa la mid ah tabaha iyo xeeladaha uu isticmaalaa talbiis inuu ku khaldayo wax kuu maldahayo wax walba madmadow kaa gelinayo waxaa laga yaabaa masale qofku uu yaqaanay oo uu og yahay inay xaaraan tahay ayaa markay ku qabsato midig iyo bidix intuu eego ayuu qiil u baadhaya nimaad jeceshahay minhaaj masale ugama weydid bay odhan jireen ama daciif ha noqoto ama raajix ha noqoto wuxun baa u baadhbaadhanayaa qofku talbiiska waxaa ka mid a inuu baatilkii xaq uga dhigo waxaa ka mid a waxyaabahaan ku tusaalayn karno markii aan joogay jaamacadda joogay ayaa nimankan carbeed dumarka waa inagaga baahan yihiin oo waxa alle subxaanahu watacaala ku abuuray nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa adduunyadiinna labaan ugu jecelahay dumar iyo cadar baan ugu jecelahay nin carbeed oo aanu kursiga ku wada fadhiisan jirnay jaamacadda madiina ayaa marka jaamacadda laga baxo basas baana lagu qaadaa waxaana la keenaa masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda alcasr ilaa cishaha la iska joogaa duruustaa masjidka ka socota waxaa laga sheekaystay jaamacadda dhexdeeda rag ardayda ka mida oo yidhi annagu xaramka ma aadno war maxaad u aadi weydeen xaramka intaanu sii gelayna 500 oo dumar ah eeraan suuriyaad yurubiyaad soo islaamay oo weji qaaqaawan oo cadcad basaa dhinacyada nooga dhaafaya annaguna iska bulaanuna markaa ma xamili karne jaamacaddaanu anagu iska joognaa xaramkana saasaanu ku seegnay nin asxaabtaydii ka mida waa ninkaa ila fadhiyo shiikha oo raggii aadka u dadaalka badnaa ahaa ayaa wuxuu yidhi oo maxaa dhiba ku jira anigu waan tagaa maalin walba ishana saasaan ula raacaa buud gabdhaha kala duwan waayo anigu fitno u eegi maaye waxaan u eegayaa abuurta alle cajaa'ibtaa siduu u abuuray shaydaankaa u hagaajiyey tii nabigay khilaafsanta calayhi salaatu wasalaam waxaa mar dhexdaasa igala soo hadlay jarmal
waatan dee dadkan yurub jooga hadda guryaha dhisanaya waxa weeye ribadii caddayd baa laga yaabaa qofka in loo fududeeyo marka nin baa ila soo hadlaya aan garanayo waxa igu yidhi waxaan doonayaa jaanis baan helay inaan waxa weeye guri iibsado qiimo jaban baan ku helay bangiga ii iibinayaa wuxuu isaarayaa dulsaar waxaan ku yidhi waxaasi ma baahnay ka fogow cawad khayr qabana ilaahay waa ku siinayaa waman taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran min wuxuu yidhi waxaan la hadlay ninkii hebel waa nin kaleo isna aan cilmi ku dhaamin laakiin xagga danta ka hadlaya wuxuu igu yidhi waxaan ku yidhi guri baan iibsanayaa wadaadkii sheekh xasan baan bal la tashanayaan weydiinaya wuxuu igu yidhi hebel waa nin kale oo saddexaad oo aan garanayo waar maxaad ka weydiinaysaa ma yurub buu kula jooga duruuftayna haysata iyo ciyaalka inaga dayacan iyo kirada laynaga qaadayo iyo waayahaynu ku noole waxba kama oga cilmi ma lihi laakiin anaa kuu fatwooday wadaadkaas waxa ma oge iibso soomaaliyana ha la hadlin buu ku yidhi way badan tahay dadka iyagoo cilmi leh aqoon u leh haddana indhaha isku qabanaya ee shaydaanku uu waxa weeye waxu maldahayo shaydaanka xiyashiisa waxaa ka mid ah iyo xadhigga uu dadka u maleegayo qadiyadda la yidhaahdaa ataswiif wa hiya ra'su maali ibliis inuu dadka ku abuurayo inay wax dibdhigaan dembigii buu samaynayaa wuxuu odhanayaa ina allaha ghafuurun raxiim waa toobad keeni doontaa waa lagu cafin doonaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa in sha allah waa toobad keeni doontaa meel xun baad joogtaa markaad ka baxdaad toobad keenaysaa in sha allahu tacaala 25 jir baa tahay haddaad 30 iyo 40 iyo 50 gaadho xaalku waa kala degaya in sha allahu tacaala ilaahay baad u soo noqonaysaa wadkuna intaa waa ka sokeeyaa isagoo taa ku jira laga yaabaa inay tiis u timaado waxyaabuu isticmaala waxaa ka mid ah tahwiinu min almacsiya inuu dembiga kuu fududeeyo waxaad arkaysaa qofkii oo dembigii samaynaya marka la waaniyo wuxuu odhanayaa waar anigu xaalkaygu waa sahlay ninkii ismaaciil miyaadan ogeyn halkuu marayo dadku waxay samaynayaan miyaadan ogeyn taydani waa sahal waa fududahay ummadi meeshay maraysa waxba kama ogid wuxuu fududaysanayaa tuu samaynaya isagoo daliishanaya dadku halka ay marayaan waxaa ka mid a tasciibu tawba inuu qofku toobadda isku adkeeyo oo uu yidhaahdo xumaantan haddaan hadda ka toobad keeno kollayba berri baan ku noqonayaa ee aan iska wado halkay ila gaadho aan eega aan iska sii wado waxaa ka mid ah atayiis shaydaanku inuu kuu quusgoynayo oo uu ku odhanayo war maadigii waxaa sameeyey baa toobad keenaya waana kuwii alla subxaanahu watacaala aayadda uu ku soo dejiyey qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica iyo aayadihii kale suuratu lfurqaan dad baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen waxbaanu dilnay oo waanu badsannay dilkii xaqdarada ah zinaanu samayno waanu badsannay xoolaanu dhacno waanu badsannay dabadeedna aayaadkaasaa ku soo degay oo la tilmaamayo qofka in laga toobad aqbalayo maalin dhoweyd baa waxaa yimi nin dhallinyaro ah anuu masjid ka soo baxay dabeedna wuxuu uhi shiikh dembiye waaweyn baan sameeyo muddo aan waday oo waan fogaaday waxaan doonayaa inaan toobad keeno masjidka galoo 2 ragcadood toobaha tukaanku ogi uu igu soo noqdo wuxuu yidhi hadda shiikh ma ogid waxaan sameeyey wax caadiya maaha waxaan sameeyey anigii baaba yaabay waxaa ku idhi toobad baa ku filane toobad caama toobad keen waxaad og tahay waxaadan ogeynba mar saddexaad buu igu soo laabtay waxa uu yidhi shiikh waxaygu wax caadiya ma haddaan kuu sheegana waad yaabaysaa waxaan ku idhi wax ka weyn baan ogahay ee waxa weeye toobad keenoo iska soco marka qofkaas oo kale haddaanu helin cid u caqli celisa waxaa laga yaabaa inuu saaxada ka baxo asaaliibtiisa waxaa ka mid a qadab cadho waxaa la sheegay ambiyadii hore kutubul israa'iiliyaad ay sheegayaan laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi yaxya ayaa shaydaankii la kulmay dabeedna waxau ihi xaggee lagaa helaa 2 xaaladood baa laga helaa buuri cinda alghadab wa cinda alhawa qofku markuu cadhaysan yahay iyo marka uu waxa weeye waxa naftiisu ay jeceshahay ilaahay uu ka xarimay uu ag joogo labadaas agtooda layga helaa waa 2 xaaladood ee khatarta ah
cadhadu waa khatar weeye nabiguna aad buu uga digay calayhi salaatu wasalaam dunuub badan oo dhacaysaana waxay ku imanaysaa cadhay ku imanaysaa waxay soo martay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam anoo jooga maalin maalmaha ka mida subax khamiiseed oo caadadu ay ahayd maalinta khamiiseed masjidka in la yimaado ayaa masjidka anoo jooga barqadii oo dadku iska cibaadaysanayaan kuwa sooman kuwa kutub akhrisanaya kuwa duxa tukanaya dadku ay fasax yihiin baa nin baa ii yimi wuxuu ihi shiikh ninka halkaa fadhiya baa moobeelkiisa waxaa ku soo dhacay muusikaa ku soo dhacday waan u tegey anigoo waaninaya waxaan ku ihi muusikada mishaatika ka daa dabeedna wuxuu igu yidhi inqalic oo carabiya waa kelmad sacuudiyaanku isticmaalaan af soomaaliga haddaynu sideeda u cabirno waa kala jeedi wey qof aad u timi oo aad waanisay iga tag iyo waana aqbalayo waayahay midna ma odhan wuxuu ku yidhi kala jeedi ninkii kelmaddiiba aad buu u dhibsaday dabeedna wuxuu fadhiistay meel ku soo jeeda ninkiibuu eeganaya ninkiina moobeelkiisu ku mashquulsan yahi midhaa saacad buu hor fadhiyey wuu isleeyahy ninkaa ku bilow la dagaalan waa xaramka dhexdiisa iyadoo xaaladdu sidii tahay baan masjidkii soo galay kitaab weyn baa sitaa imtixaan iyo waxbaan lahaa markaan sunnihii ka baxaya kitaabkii la kala baxay buu isoo dul fadhiistay sheekadii buu iga sheekeeyey wuxuu uhi ninku waa ninkaa maantoo dhan shaydaanku wuxuu igu leeyahy ku bilow ninkaas waxba ilama hadhin waxaan ku idhi sow diin iyo cibaado umaad iman masjidka ilaahay ku daa waajib baad gudatay asabru cala aladaa fiih dhibka dacwada waa in lagu sabraa wuxuu ihi shiikh laakiin adigu ma ogid kelmaddani waa dil xagga iyaga xabad baa la ysku dhuftaa dabeedna waxaan ku idhi haddaba ka aag bedelo ninkaasi siduu u eegyahay iyo muuqaalkiis waxa weeye waad yaabaysa ninkii u soo kal lahay masjidka inuu ku cibaadaysto shaydaankii wuxuu gaadhsiiyey xaramka dhexdiisa inuu ku talagalay inuu ku dagaalamo siduu u waswaasinayey cadhadaanu ka faa'iidaystay waxaan kusoo gabagabaynayaa shaydaanka hawshiisu waa badan tahay dhowr qodoboo kale ayaa hadhay laakiin wakhtigii baa iga dhacay waxyaabaha shaydaanku uu adeegsanaya waxaa ka mid ah ataxriish bayna alcibaad dadka inuu isku diro wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam shaydaanku waa ka quustay in jasiirat alcarab lagu caabudo laakiin wuxuu ku raali noqday oo uu damaacisan yahay inuu dadka dhexdooda isku diro dadka qaybqaybiyo dadka qabyaalad ku dhex abuuro nacayb iyo cuqdad iyo xiqdi iyo xasad ku abuuro ayuu aada uga shaqaynayaa mujtamaceennana taasi halkay dhigta waynu garanaynaa waxyaabo badan baa la ysu qaybqaybinaya culimadii baa la qaybqaybinaya kelmad baa la jeedinaya waa laga daba qaadanayaa shiikhani waa kooxibla culimadu waa qaybsan tahay baa xaq badan lagu daadafaynaya waxna waa ka jiraan waa la qaybsan yihin dadka qaarna khilaafka waxaa laga yaabaa si xun oo shaydaanku ka dhex faa'iidaysanayo inay khilaafaadka culimmada u dhaxeeya ama aaraada kala duwan ay uga faa'iidaystaan waxaa ka mid ah qaybinta shaydaanku sii hurinayo qabyaaladan aynu la ildarannahay ee dadkii ku fogaatay ee xaaladdu ay marayso kii safka hore ku tukanayay inuu qabyaalad ka shaqaynayo waxyaabaha ugu la yaabka badan ay soo maraan goobjoogga u ahaa nin odaya oo safka hore ku tukanaya oo ahlulcibaado ah ayaa waxaa dhacday ninuu garanayaa guursaday gabadh guursaday safkii hore kula soo tukaday wuxuu war hebel waxaan maqlay inaad cid la xididay aad la xididay wuxuu yidhi xaafaddaasaan la xididay waa daantii kale dabeedna intuu odaygii yaabay buu yihi war maxaa kugu dhacay nin wanaagsan baad ahayde qolada isumaynaan geli jirin la isuma gudbi jirin taariikh buu uga sheekeeyey waa masjidka gudihiisa oo uu leeyahay khalad baad ku dhacday inaad la xididda may ahayn colaado iyo nacayb iyo cuqdado ayuu waxa weeye ku abuurayay taxriishka waxaa ka mid ah waxa weeye kooxaha kubadda iyo waxaan dadku ay ku qaybsameen oo dadkii intay la fogaatay dhibaatooyin waaweyne ay ka dhaceen in qacanta la ysula tago waynu aragnay garoonadiina waxa ka dhaca waxaa dhacay in la isku furo oo waxa weeye iyaduna dhacdooyin badan ay dhaceen sacuudiga waxaa ka dhacday nin iyo xaaskiisoo laba naadi oo isbaanisha taageerayay jaraa'idada lagu soo qoray
ayaa waxa weeye labadii qole say ugu saacabinayeen TV-ga u daawanayeen shaahoodana isaga cabayeen ayaa waxa weeye kooxdii gabadhu taageeraysay baa badisay dabeedna waa dumar oo kala hadhimayso yaa habar kullaga kaama kacdaa leeyahay qolkuu galo oo mushxarad bay kala daba gashaa intuu cadhooday buu saddexdiiba ugu yeedhi saddexdiiba waxa weeye ugu yeedhi waxaan kaga baxayaa waa ku soo gabagabaynayaa shaydaanka maxaynu iskaga dawaynaa ku fogaan maayo koow waxa dawo ka ah aliimaanu billaah waaltawakkulu calayh ilaahay in si dhaba loo rumeeyo allana subxaanahu wa tacaala la tala saarto inahu laysa lahu sulطaanu cala aladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakkaluun shaydaanku wax awooda iyo wax saamayna ku yeelan maayo kuwa ilaahay rumeeyey allana subxaanahu wa tacaala tala saartay qodobka labaad ikhlaaska in lagu dadaalo waxa la samaynayo hawadana in lala dagaalamo waama man khaafa maqaama rabbi wanaha الnafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'wa lauwiyannahum ajmaciin ibliis waxa uu leeyahay bini aadanka dhammaantiin waan luminayaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin kuwa ikhlaaska laga helay mooyaane inta kale waa luminaya qodobka saddexaad diinta in la barto oo lagu dadaalo jahligana lala dagaalamo qodobka afraad ee ugu dambeeya in xuska alle subxaanahu wa tacaala la badiyo oo alle subxaanahu wa tacaala la xuso qalbiga laga xuso carabka laga xuso labadaba la isku daro adkaaru sabaaxi walmasaa lagu dadaalo mucawidataynka iyo ikhlaaska lagu dadaalo aayatulkursiga la akhriyo oo alle subxaanahu wa tacaala qalbigeenna aynu ku xidhno ayaa iyaduna badbaado ah wallahu aclam وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.